dhacdooyinka caalamka, dhiirigelinta, qisooyinka, taariikhyada, intaba waxaad ka helaysaa janaalka Sahanwade. Fadlan ka mid noqo dadka ka faa'iidaysta muuqaaladiisa. Subscribe dheh, gambaleelkana furo si aad u noqoto daawadaha koobaad. Mahadsanid walaal. Assalaamu calaykum. Su'aal: waa tahay xubinta ugu muhiimsan jirka bini'aadamka? Waxaan filayaa in qof walba uu ka jawaabi karo su'aashaas. waxaa laga yaabaa in dadka qaar ay niyadda iska leeyihiin waa tahay xubintaas. bini'aadamku isku mid maahan, qofba sibuu wax u fahmaa. su'aashaas markaan ka jawaabno ayaa waxay tahay xubinta jirka bini'aadamka ugu muhiimsan waa maskaxda, taasoo laga kontaroolo shaqo walba oo jirka ka dhacaysa, ha ahaadeen xanuunku soo gaaray, ha ahaadeen walwal aad hadda dareemaysid. shaqooyinkaas oo dhan waxaa laga xukumaa hal meel oo ka mid a jirkaaga, waana maskaxda. markaad tahay arday waxaad arki kartaa awoodda maskaxeed ee aad leedahay haddii aad fahmaysa casharka durbadiiba marka uu macallinku sharxo, inta aysan fahmin ardayda kale. bini'aadamku wuu ku kala duwan yahay dhanka fahanka, laakiin maskaxda waa isku mid. Alle subxaana wa tacaala ayaana sidaas u abuuray. waxaad arkaysaa qof nicib xisaabta iyo waxyaalaha loojiga ah marka la joogo goobaha waxbarashada. maahan in qofkaas kaa maskax liito adiga, ee waa dabci qofkaas uu isku abuuray, wuxuuna iska dhaadhiciyey inuusan awood u lahayn inuu fahmo xisaabaadka iyo waxyaalaha la midka ah. sidoo kale waxaa jira xanuunno ku dhaca maskaxda oo rabbaani ah xagga fahanka. tusaale, ninkan oo kale. ninkan waxaa la yidhahdaa Richard Branson. waa nin maskaxda ka qaba xanuunka fahan la'aanta, waana nin bilyandheer ah, wuxuuna iska leeyahay shirkadda diyaaradaha ee la yidhaahdo Virgin. laakiin ninkan wuxuu gaaray hadafkii uu ka lahaa nolosha. ma uusan fiirin fahan la'aanta uu qaba, ee wuxuu fiiriyey rajada iyo yoolka uu leeyahay. marka walaalayaal, maadaama ay xubintan inoo tahay mid aad iyo aad ugu muhiima nolosheenna iyo jiritaankeenna, waa inaan ilaalsannaa. waxaan filayaa inaad aragtay dadka maskaxda ka jiran oo walwaalan xaaladda ay ku jiraan iyo sida ay noloshooda u socoto. haddaba halkan waxaan kugu soo gudbinayaa 7 caado oo ay tahay inaad iska ilaaliso si aad u hesho maskax qabta caafimaad wanaagsan. qodobka 1: seegitaanka quraacda xilliga aad afuran tahay. waxaan ognahay dhammaanteen in quraacdu ay tahay cuntada ugu muhiimsan maalintii. haddii aanan subaxii hore quraac qaadan, jirkeenna waxaa asiibaya xanuunno fara badan, sida inuu gaas ku dhaco, inuu yaraado qulqulka dhiigga ee aada xubnaha jirka ee kale. sidoo kale waxaa dhacaysa in sonkorta jirkaada ku jirta ay dhacdo, taasina ay sababto in nafaqada ay maskaxdu qaadan lahayd ay weydo, ugu dambaynna uu kugu dhaco xanuunnada maskaxda ah. haddaba waxaan filayaa inaad qodobkan wax ka ogaatay, aadna iska ilaalin doonto hadda ka bacdi. qodobka 2 waa sleep deprivation, hurdo la'aanta. hurdo la'aanta faraha badan, in uusan qofku seexan hurdo ku filan. taasi waxay maskaxda ku keentaa inay dhintaan unugyada maskaxda, kadibna aad bilowdo inaad subaxii hore ku hurdooto goobaha waxbarashada iyo sidoo kale goobaha shaqooyinka. haddii aad waqti dheer sii waddo caadadan, ugu dambayn waxay kugu sababaysaa maskax qalal. maskax hurdo ku filan hesho ayaa si fiican u shaqayso, soona saarto fikir wax ku ool ah. marka walaal, seexo hurdo kugu filan, weliba waqtiga habeenkii ah. qodobka 3 waa cunitaanka faraha badan. isna wuxuu maskaxda bini'aadamka ku keenaa dhibaato aad u weyn. waxaa la sheegaa dadka aadka u cayilan in ay badanaa qabaan xanuunno maskaxda ah, sida kalsooni la'aanta nafsaaniga ah. sidoo kale waxay sheegeen daraasado badan inay yihiin dadka ugu nugul xanuunnada ku dhaca maskaxda, sida waalida iyo depressionka. marka walaal, haddii aad cayilan tahay, isku day inaad iska gubto baruurtaas, waayo waxaa badan xanuunnada ay kugu sababi karto. qodobka 4 ee maskaxda bini'aadamka u geysta dhaawaca waa cabidda sigaarka. baaritaanno la sameeyey waxaa la sheegay in cabidda sigaarka ay maskaxda u keento dhibaato aadan marna filayn. waxaa la helay in cabidda sigaarka ay dhaawac weyn u geysato unugyada dhexe ee maskaxda iyo xubnahooda. sidoo kale cabidda sigaarka waxay ugu dambayn ku sababi kartaa baa la yidhi maskaxdaada in unugyada shaqada ugu weyn maskaxdaada ay gubtaan oo ay daxlaystaan. sidoo kale dhammaanteen waxaan ognahay in cabidda sigaarka ay sanbabaha qofka bini'aadanka ay bataati noqdaan oo weliba madoobaadaan. cabidda sigaarka marna uma roona caafimaadka oo dhan. marka waxaan rajaynayaa walaal inaad wixii fiidiyowgan ka dambeeyo aad iska dayn doonto cabidda sigaarka faraha badan. qodobka 5 sidoo kale waxyaalaha dhaawaca u geysta maskaxda bini'aadamka waxaa ka mid ah dehydration, fuuqbaxa. qofku markuu fuuqbaxo waa inuu cabbaa biyo fara badan. haddii aadan maalintii cabbin 8 galaas oo biyo ah, waxay saamayn ku yeelanaysaa unugyada maskaxdaada. jirka bini'aadamka 75% waa biyo. marka haddii aadan cabbin biyo kugu filan, waa dhibaato maskaxeed iyo weliba mid jireed. markii aad cabto biyo fara badan, jirku waxa uu iska saarayaa sun fara badan. sidaas li'adligeed waa inaad cabtaa biyo fara badan si aad u hesho maskax fiyow oo caafimaad qabta.
qodobka lixaad ee maskaxda bini'aadamka dhaawaca u keena ee ay tahay inaad iska ilaaliso waa cunitaanka cuntada sonkortu ku badan tahay. cunitaanka cuntadan sonkortu ku badan tahay waxay maskaxda ku sababtaa inay lumiso awoodda shaqadeeda iyo nafaqadii ay qaadan lahayd maskaxdu. aakhirna waxay maskaxda qofka ku sababaysaa inay ku dhacaan xanuunada daran ee ku dhaca maskaxda bini'aadamka. iska ilaali inta aad iska ilaalin karto sonkorta, waxaadna arki doontaa qaabka ay ugu shaqaynayso maskaxdaadu si wanaagsan iyo weliba caafimaadka jirkaaga oo dhan. qodobka toddobaad oo ah qodobka ugu dambeeya sidoo kalena ah qodobka ugu xun ee saameeya maskaxda bini'aadamka waa stresska. stressku waa waxa dila maskaxda bini'aadamka. sidoo kale wuxuu saameeyaa stressku muuqaalka guud ee qofka bini'aadamka ah. waxaa la yidhi stressku waa waxa ugu fudud ee maskaxda qofka ku sababi kara waalida iyo xanuunada dhimirka. haddii aad tahay qof walwal badan, ogow waxaad khatar ugu jirtaa xanuunadan maskaxda ku dhaca mid ka mid a. iska saar walwalka sida ugu dhaqsiyaha badan. haddii kale waxaad noqon doontaa qof nolosha ka dhacay. haddii aad ka fikirayso wax ku dhacay noloshaada, haddii uu qof xiriir kaala dhexeeyey uu meel cidlaa kaaga tegey, haddii aad ka walwalaysay dhaawacyo lagu geystay maskax ahaan iyo jir ahaanba, waxaan kugula talin lahaa walaal inaad ka saarto maskaxdaada kuwaas. waxaas waxay ahaayeen wax la soo dhaafay. ka fikir waxa hadda la joogo, waxa soo socda mustaqbalka, nolosha quruxda badan ee ku sugaysa, si aadan ula kulmin xanuunadan maskaxda ku dhaca oo aysan qaarkood dawo lahayn. waxaan filayaa inaad ka heshay fiidiyowgan waxtarka leh. waxaan ku bixiyey waqti walaal si aan ula wadaago walaalahayga Soomaaliyeed. adiguna raadkaaga nooga tag, wixii aragti ahna hoos noogu qor. channelkana subscribe garee, fiidiyowgana like dheh. waad ku mahadsan tahay daawashada fiidiyowgan. waa walaalkiin Saki Cabdi Yaasiin.